waxaynu qaadnay waa mas'uuliyad waxaanu dhahay dad dhaartay waxyaabaha mas'uuliyadaha ugu culus bay ka mid tahay miisaaniyad waayo sanadka soo socda oo dhan hawlaha dawladda waxa lagu kala hagayaa waa budgetka maanta aynu sii deynayno hadduu noqdo wax uun timeline-kii baa ina soo galay aynu dhaqso u sii deyno waa khayr mas'uulnimo qof kastooba waajibkii aad u dhaaratay waxbaad ka tagtay bay ka dhiganta waxaan odhan lahaa wasaaradda maxaa ku buraya haddii aynu 5 maalin shaqo si wanaagsan uga doodno guddiga aragtiyaheena siino wax wanaagsan oo Soomaali isku raacday oo wanaagsan oo tifatiran la soo saaro maxaa ku buraya ma deeqaha dib leeyeen ka dhacaya maxaa jira bal loo sheega sababta timeline-ka loogu cararayo COVID 3 December looga dhigay xilli sambusa laga yaabaa amala taa waa inaad noo sheegtaan talabaad waxa la yiri nin hagoog xumi inuu wax qarsanaya la moodaa laba xisaab xir baa idinku maqan wasaaradda maaliyadda 2017 iyo 2018 iyadoo qurux badneed 2017 xisaabteeda aynu iska xidhno wasiirada sharafta leh fadhiya xeeraha sanaga aamusan please xisaab xirkii 2017 walo baarlamaanka buuq badan galay haddana dib u dhac ayaanu dareemanaa wasaaradda dhankeyga annaga wax walba hadday niid yihiin hal maalin baa lagu kala faataxaysan lahaa kolkaa haddii iyadoo xisaab xidhadiidu ku maqan yihiin haddana aad noogu dartaan hadda noo boobsiiya qof kasta oo Soomaaliyeed oo ina daawado waa shakeeya xildhibaan kastana khayr mas'uul baa la qoray ka waxaan la horta waqti aynu siino dib ma laha haddii wax degdeg yihi jiro oo mucaawimooyinku inaga dhimanayaanna dee noo sheega hanaga qaranine taas waa mid talabaad mid aan qabay oo aad ila muhiim ahayd wasiirka wax ka taabtay waa arinta maamul goboleedada iyo dakhligeeda ugu jira waxa qaaraankeena loogu daray mudane wasiir waan tahay waxa tiri Soomaaliland 200 kun oo wada hadalada loo asteeyay ugu jiraat waxaan koran lahaa magaca ka bedel Soomaaliland usbuuciina dhaafay miisaaniyad teena ka badan bay sii deysay waa ihaano in budgetka 200 kun loogu qoro qofkii akhrista uu wareeraya kaaga daran laba budget oo ina dhaafay waanu ku arkanay kamaanu hadal haddaanu ka hadlanaa magac kale u bixi wada hadalada wax ku qor magarad ka saartaana iyadana arinta laga Soomaaliland midda saddexaad ee qaba waxa weeye miisaaniyad kasta activities bay ka jawaabaysaa iyo maxaa ku dhahday ujeedooyin walaalkayga igu horeeyay mid baan la qabaa amni darrada dalka ka jirta camalaanta qaybka budgetkii uu kordhay laakiin in employment opportunity jiro oo budgetku inuu dad shaqaaleynayo waa mid aad u muhiim ah dawladda maanta labada sano ee baarlamaanka u nahay hal qof oo si official ah golaha hortiisa looga shaaciyo leeyahay budgetka waxaan ku darnay number shaqaalo inta leed mid inta aniga ogaalkayga bal haddii budgetka aad ku darteen shaqaale cayiman dawladda sharaf tahay noo sheega